بسم الله الرحمن الرحيم. agaasimayaasha guud gudoomiyaha shaqaalaha rayidka agaasimayaasha waxyeelada shaqaalaha iyo meediyada waxaan u salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii saad ula socotaan aad warbixinta ka dhageysanayseen khiyaartii ugu horeysay waxa aan maanta daafuraynaa waxaan is leeyahay waa laga gaabiyey oo ma aysan baahayn maanta in daafure in mar hore hawshan la socotay ahayd waxa laga hadlay waa cudurkuna ma aha cudur qof saaxiib la inaad cadaan tahay inaad madow tahay inaad muslim tahay iyo inaad muslim baahayn inaad taajir tahay inaad fakir tahay intaba cudurkani ma aha mid maxaan ku dhahday si gooni ah qof u tiideynaya qofna u dilahay waa cudur masiiba oo caalamka kusoo kordhay waad ogtihiin wuxuu soo maray wejiyo badan wejiga koowaad oo aad loogu dhammaaday wejiga labaad oo lamid ahaa ka saddexaad oo hadda cabsi weyn laga qabo oo saameynta uu ku leeyahay dadka iyo bulshada sida hadda ay sheegayaan agaasimayaashu aanan ku ekayn dadka waaweyn ama liita balse dhalinyarada naftooda ku dhacay waa cudur aan horey loo aqoonin daawadiisuna ay ku timid si degdega in loo sameeyo waad ogtihiin qiimaha ay ku baxayso daawadaas innagu waddan waxaan nahay tabar yar wax kasta oo aan u baahannahayna waxaan ka helnaa dibadda haddii talaalkii naga siiyey in la qaadan waayo oo waqtiis ugu dhacana waa nasiib darro shaqaalaha rayidka ah iyo qof kasta oo Soomaali ah waxaan u sheegaynaa talaalkaas inuu yahay talaal muhiima waajibna ay tahay gaar ahaan shaqaaluhu waa laf-dhabarka bulshada waa dadka ummadda u khidmaynaya haddii ayagii ay shaqaynayaan qofkay u khidmeeyaan u imaanayo talaal uusan jirin macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofka shaqaalaha wuxuu qayb ka noqon doonaa inuu faafiyo cudurkii oo cudurkii guriga uu tago iyo qofka u imaanayay sida la aligeed waxaa waajiba shaqaalaha dowladda inay khasab ku tahay yacnaa lama heli karo qof lagu khasbayo isaga dantiisa qof lagu qasbahayo dhibashada ilaahay bahaya laakiin ka hortag in la sameeyo marka waxaan soo jeedinaynaa oo maanta aan daafuraynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel joogaanba inay waajib tahay in talaalka la qaato lacag ma aha waa cudur khatar waa cudur aad ka badbaadi karin waa cudur reerkaada ku dhici kara saaxiibkaa ku dhici kara sida aragid waxaa waajiba in guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel joogaanba inta u heli karta talaalkaasi ka faa'iidaystaan shaqaaluhuna waajib baa saaran maxaa yeelay shaqaaluhu waa kuwa goobaha shaqada jooga weeye haddii idinku cudurku inagu dhaco kuwa u shaqeynayseen in dhiman ku dhaco macnaheedu waxa weeyaan gurigii 100% cudurku waa imaanaya runtii cudurkan hadda la sheegay saddexaadna waa cudur aan is leeyahay calaamadaha lagu arkayo siduu u yahay aad buu uga duwan yahay kii hore marka talaalku waa muhiim waxaan rajaynaynaa inaad talada qaadataan khaasatan shaqaalaha rayidka ah iyo shaqaalaha kale ee meelaha private ka shaqeynaya waajib wuxuu ka saaran yahay inay qaataan wasaaradaha waxaan kula talinayaa una sheegaynaa mar haddii wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada ay bilowday talaalkii iyo wasaaradda caafimaadka inay noqon doonto maalmaha soo socda in goobaha ay joogaan lagu tegi doono laguna khasban yahay in talaalka la qaato qofkii shaqaaleen talaalka haysanin de waxay noqonaysaa awaamiirta la soo saaray qof aan u hoggaansamin wixii sharcigu qabana waa marahaya waxaad la socotaa mar dhow markuu qofka safraya hataa oo caalamku aadaya hadduusan wadin shahaado certificate oo talaal uusan qaadan inuusan dhoofi karin taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofka shaqaalaha ee goob shaqo usoo shaqo tegaya waa inuu talaalan yahay way khasab ku tahay maxaa yeelay waa waajib ina saaran weeye waxaan is leeyahay intaasi waa dardaaranka aan kusoo koobaynaa waxaan ka hadlaynaa waa naftiina waa naftaanada talaalkaana ha la qaato taasaan is leeyahay waa arrinta ugu muhiimsan cudurkan ilaahay baa awood leh waad garanaysaa cudurka awoodda uu leeyahay iyo saa wax lagu qaban karin haddana dadaalada jiray iyo daawooyinka la soo saarahay ee intaasoo malyan ay ku baxayso innagu aan ku helin lacag la'aanta lagu deeqayo dee in laga faa'iidaysan rabaa aysan dhicin in sidaa agaasimaha uu sheegayay number aan aad loo filin baa laleeyahay waa talaalan yahay tiro ka badanna waa ay jirtaa dhaqanka Soomaalida innagoo ilaahay talada saaranayna haddana dad badan baa iska indha tira oo waxay dhahayaan af la xidhanhayo iyo gacmo la dhaqahayo wix ilaahay keeno baa ku dhacay waa run ilaahay baa qadaraya laakiin ilaahay tan wax sabab uu sameynaya marka in la taxadaro oo maxaan ku dhahday la dadaalo afka la xidho gacmaha la dhaqdo talaalka la qaato waajib weeye waxaan kaloo ku codsanaynaa qofka dareemaha calaamadaha uu leeyahay
dhaqan Soomaaliya jira inayna qarsanin baalka qofku inuu sameeyo malaria haysa inuu sameeyo hargab baahaya yani ceeb ma aha ana hadda test aan soo sameeyay intaan gelin halka dad badan baan soo sameeyay meesha qof waa inuu isbaara oo isfiiriyo haddii laga helo waxa badbaadinaysa naftaadii oo xilli wax laga qaban karo ayaad imaanaysa laakiin dad qarsato guriga fadhido reerkina aad ku daarato shaqaalihi aad ku daarato bulshada aad ku daarato adigoo sababada ay caabuqeenna aad dhakhtarkii waxtar meesha cudurku wuxuu leeyahay hortag buu leeyahay hortag ma laha taasna ceeb ma aha waa cudur adduunka dhan ku dhacaya weeye marka in laga xishoodo ma aha qofku waa inuu test sameeyaa dareen hadduu garto waa inuu isdareemaa waa inuu dhakhtarka u tagaa la socodsiiyaa muddada uu dareemayana waa inuu isxayiraa oosan reerkii carruurtii dadkii usu dhex tegin aad iyo aad baad mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa in hawshaasi ay maanta noo bilaabatay dardargelinteeda in ay socon doonto wasaaradaha kale na waxaan usoo jeedinaynaa iyagana sidaas lamid ah in goobaha loogu tago lana tallaabo shaqaalaha aad baad mahadsan tihiin hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom